السلام الله عليكم ميل كستو الدنيا كجوجتان ولكن درس حسن محمد بيج كايغا داونيسا waa درس قصو بيج اوفيشال sidoo kale waxaad igala socon karaysaa kanaalkayga youtube-ka ee درس قصو channel official muuqaalka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 4 muuqaal oo aad u la yaab badan oo duubtay CC kamaradu muuqaaladani waa haweeney ama dad badan oo ka dhex muuqanaya muuqaalkan oo xadaya alaabo dad ay iska leeyihiin muuqaaladan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page-kayga like saar sidoo kalena qaybta youtube-ka subscribe saaro gambaleelkana furo waayo waxay kaa caawin kartaa si aad ula socotid muuqaaladan soo geliyo mahadsanid muuqaalkeena koowaad waxa uu ku bilaabmayaa sidatan gabadhani waxa ay ka shaqaysaa gurigan waxayna qaabilsan tahay in ay dhaqdo dharka wasakhda ee guriga yaala hadda sidaan wada filayno waxay ku jirtaa meel lagu talagalay in dharka lagu dhaqo ee qasaalada taalo gudaha ayay ku jirtaa oo dharka ayay kala guraysaa marka ay gudaha u soo gasho meesha ayaa waxay baadhaysaa dharka bal inay lacag iyo waxun ku jiraan sida aan wada arkayno hadda kolba mid ayay baadhaysaa oo waxay eegaysaa ina balun dadkan ay u shaqaynaysaa ay lacag kaga tageen iyada oo kolba mid baadhaysaa si ay uga hesho waxun markii dambe boorso ayay heshay lacagtiina way kala baxday meesha aan arkayno ayay gashatay lacagtii kadibna dib ayay ugu celisay boorsadii surwaalkii ay ka saartay lacagta muuqaalkeena labaad waxa uu ku bilaabmayaa sidatan labadan hablood yaryar waxa ay nadaafadiyaan guryaha ayay xaaqaan kadib waxay arkaysaa boorso meesha taalla oo qofkii meesha hurday uu kaga kacay way wada eegayaan oo waxay leeyihiin maxaa ku jira balukaadii aan kaa eego inay dad soo socdaan taasi gaarka ayay gelaysaa tanna boorsada ayay baadhaysaa sida aan wada arkayno kadib albaabka ayay soo istaagtay si ay uga ilaaliso dadka meesha soo gelaya ayna u sheegto haddii la soo socdo ay ku dhahdo inaga dhig waatan waa la soo gelayaa labadan hablood yaryar kama tirsanaa reerkan ay joogaan laakiin waxay u yihiin shaqaale u nadiifiya guryaha wayna eegaysaa inay cid soo socoto kolba marka ay weydo cid soo socota ayay soo gelaysaa oo waxay leedahay maxaad heshay bal boorsada wayna ku soo durkaysaa iyadii oo boorsadii ayay haddana dib u eegaysaa taasina wax ay ka hesho ma laha oo way iska dhigaysaa boorsadii waxayna iska dhigayaan wax nadaafadaynaya hadda guriga oo sida aan wada arkayno waxay qaateen xaaqooyin ama waxaan guriga lagu xaaqo sida aan filayno dadka guriga iska leh way joogaan guriga laakiin qolkan nadaafaddu ay ka socoto kuma jiraan sida aan wada arkaynana hadda waxay ku jirtaa nadaafadii guriga tii kale kolba way ku soo noqonaysaa oo boorsadii ayay eegaysaa waxayna ogaanaysaa inayna waxba ku jirin oo tii kale ayaa odhanaysaa inaga mari meesha muuqaalkeenna saddexaad waxau ku bilaabmayaa sidatan waa dukaan laga ganacsado ama dharka lagu gado gabadhan ayay istaajinaysaa oo waxay ku leedahay mulkiilaha dukaanka iska leh istaaqbal kadib ayaa waxay baadhaysaa meeshaas waxay gelisay wayna ka soo saaraysaa iyadoo u yeedhaysaa ninka iyaduna meesha kala shaqeeya labadan hablood waxa ay meesha u soo galeen inay alaabta meesha ka qaataan iyaga oona la arkayn laakiin si nasiib wanaaga ayaa waxa u aragtay gabadha meesha iska leh ee mulkiilaha iyo ninka meesha kala shaqeeya waana la baadhayaa ilaa meesha ay waxgeliyeen oo dhan laga soo guro waana laba sida aan filaynana waxay ka soo jeedaan Asia ama Hindiya sida aan filayo wadannada ayay ka soo jeedaan waana la baadhayaa oo gabadhii kolba wax ayaa laga soo saarayaa sida aan wada arkayno oo wala wada baadhayaa labadoodiiba oo kolba waxbaa laga soo saarayaa tuuganimada noocani waa mid aad u daran waayo meeshay wax geliyeen qof ragii gacanta ma gelin karayo dumar baadha mooyaane rag
marnaba iskuma howlayo inuu meesha ka baadho inay dumarkani waxgeliyeen iyo in kale. maxaa rag badan oo dukaana leh hawada lagu cunay. sida aan wada arkayno hadda gabadhii meel kastaba faraha ayay ka gelisay wayna ka soo gurtay wixii ay qaateen labadan hablood. muuqaalkeenna afaraad waa dukaan ku yaala waddada dhinaciisa. gabadhani waxay wadataa mooto waxayna soo istaagtay meel ay yaaliin gadbado bariisa ama raashina. waxayna iska eegaysaa dadka meesha maraya si ay u qaadato alaabtan ama gadbadahan raashinka ee meesha yaalla ee bariiska si ay u saarato mootadan. wayna taabanaysaa waxa ku jira waxayna ogaatay in uu yahay bariis. mootadeedii ayay iskaga dul noqonaysaa oo waxay fiirinaysaa inay dadi meesha ay joogaan iyo in kale. si yar oo tartiiba ayay iskaga koraysaa mootadeeda sidii qof ay mootadu ka halowday ama qof sugayoo kale, iyadoo xagga dambena eegaysaa. marka ay shanqadhu ay kala yaraato ayay isleedahay hal maruun gaf soo sii. meeshuna waa meel laamiya oo dukaan uu ku yaallo. weli waxay sugaysaa inta uu ka dhammaanayo shanqadha ama socdaalku uu yaraanayo, maadaama meeshu ay waddo ay maraan mootooyinka iyo waxyaabo kale oo badan. kolba way iska eegaysaa bal inay cidi. intaa ayaannu ku soo afmeeri doonaa. muuqaaladani hadday ku cajab geliyeen fadlan sheer dheh asxaabtaada la wadaag. mahadsanid.